qaar ka mid ah salaadiinta madax dhaqameedka iyo nabadoonnada gobolada Awdal iyo Sanaag ayaa sida fiinta uga qayniyay go'aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ee sheegayay in ay xilkii u soo celisay gudoomiyay golaha deegaanka ee degmada Boorama Mudane Cabdiraxmaan Shidabile kaasi oo ay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama si aqlabiyad leh xasaanadii uga qaadeen kadib markii eedo musuqmaasuq ay u soo jeedisay hay'adda antidhawrka guud ee Somaliland madax dhaqameedka ayaa xukuumadda u soo jeediyay inay faragelinta ka daayaan golaha deegaanka ee degmada Boorama gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxay sheegeen inay taageersan yihiin go'aankii ay gaadheen golaha deegaanka ee degmada Boorama isla markaasina ay gudoomiye ku meel gaar ah ugu doorteen Mudane Muumin Gadiid Cumar go'aankii ay gaadheen maalinta dhaweyd ayaan taageersanaa 14 baa fadhiistay 14kii nin bay rideen ninkaasi dawladda soo eedaysay xeer ilaaliyaha guud iyo hanti dhawraha guud warqad baa loo keenay warqadaasay ku fadhiisteen go'aanka abay gaadheen way ninkii way rideen ninku de meesha kama bixine rag baa joogi jiray iyaguna de la riday de ina cidi ku dhagto xilka maaha qolana de meesha ma ay laha dawlad baan nahay waxaan de la yaabanahay horta go'aankaasan taageersanahay oo iskugu nimid ay ku rideen inankii hore ka dambana meel ku gaar ay ugu doorteen Muumin Gadiid kaasuu shacbigu taageersay waxaan jecelnahay in cashuurta la qaado in cashuurtu socoto hadii waxa ka duwani meesha yimaado cashuurada ma baxayso ma soconayso dawladdu inay meel ay tahay baan anagu u haysanaa tiyo hanti dhawrihii guud iyo xeer ilaaliyihii ay ninka soo eedeeyeen oo audit-kii ku jiro oo rag xidhan yahay ayaba ya wasiirada la soo diray wasiir ku xigeen la soo diray wuxuu yiri wasiirkii baa shalayto kii horunba fadhiya haw sida u dhacaysa dawladdu miyayna mid uun ahayn hanti dhawriheega wama atraak wasiirku miyuuna dawladdu ka mid ahay siday u kala hadlaysaa dawladdu meel dadka inay isku dirine hamidowdo dawladda sare annaguna inamadii aan dooranay ayuun waanu taageersanay colaada ka jirta haddaba haddii uu wasiir ka yimaado Hargeysa annaga colaada buu hoodla nala soo galo oo halkan hal islaayo u yira kama yeelayno madaxweynaha waxaanu leenahay dad dawladda maartay hagaajinaya u soo dir tii dastuurka in la ilaaliyo halkan isugu nimidnay waxaan leenahay anoo qabiil uma hadlayno oo wax qolol leeyahay uma hadlayno laakiin waxaan u hadlaynaa nabadgeliyada iyo danta ummadda in la daryeelo xil baa naga saaran nin baa bari gabyay 4 iyo 6 wuxuu yiri maxay dhulka ooyow aamu anaa ku imanna aamu aabaha baa ku tura adeerka baa ku qaadaya aamu aakhira la weydiin aadan iyo rashiid bay aamu war aakhira la weydiin ninka cadaaladda isagu garan mara xilkii loo dhiibay haddii la yiraahdo hanan waaya ee gees mara ee qalloociya qiyaama loo iman waa la weydiin waa lagu ciqaabi waxaan leenahay anagu waar nabadda ha la ilaaliyo dawladda soo dirtay hanti dhawr sharcina uu ahaa inuu hanti dhawrku hantida dadweynaha ilaaliyo ma sharci darru gobolka Boorama ku yimid ama Awdal mise sharci buu ku yimid baan leeyahay waa su'aal haddaan isaga jawaabo waxa weeye oo uu sharci ku yimid sharcigii sidii uu baaray dalkii hadiraado hantidaayay wixii uu ku eedeeyay qaar way xidhan yihiin qaar way baxsadeen qaar haddana kilkilada kolba meel laga gelinayaa
waxaan leeyahay mayna isku mid ahayn kii haddana dariiqada yare hargeysaad lagu xidhay iyo kan 280 milyan 380 milyan marayaay miyayna isku sharci ahayn miyayna isku xaq ahayn miyayna isku xuquuq ahayn waa sidee waxaan leeyahay arrintaasi halkay ka socotaa meeshay ka socotaay dee waxaan leeyahay waa maamulka guude isagaa inbigees malaha mise waxaan la soo dirin baan leeyahay hanti dhowrka oo sharci darra ku yimiday waana ma hanti dhowrka ha la xidho oo wixii hadiraahdo isagaa been sheegay ha la idhaahdo ama waajibkii iyo baadhidii u baadhay hadday xalaal ahayd ciddii geftay ee lagu hayo eedda sideeda ha loogu qaado qolada konsolka ee arrintan iyadana haddana gaadhay inay xilka ka qaadaanna waxaan leenahay waan taageersannahay haddii baadhiddu sharci ahayd runtii hadday baadhiddii hanti dhowrku sharci ahayd waan ku raacsannahay dowladdana waxaan leenahay ha soo gaadho oo fadqalalayayna abuurin oo nabadayay meel kaga dhicin oo gobolka awdal yaa laga been sheegin waxaan leenahay sharcigu siduu yahay ha loogu dhaqmo annaguna waanu hoggaansannahay baan leenahay qoladaasina ma gefin baan leenahay iyo waxgaradka aad iyo aad baad u salaamantihiin kullayn waxaa uqaashu meesha iskugu timida waxay u eg tahay arrin nabadgelyo nabadgelyadana uqaashay da khusaysaa uqaashu waxay maanta ka hadlaysaa waxa weeye nabadgelyo annagu hadduu waddanka dhibi ka dhacdo fadhi nooma joogayo Somaliland gobolkan iyo gobolka Hargeysa ka deganaaya adeer miyaa la gubaya laga daayo dhibtaan leenahay waxaan ka usar leeyahay annagu ma garanayno annagu xaq wax loo wadwado waddanka geestana ka fayoobayd oo wixii dhib ka dhacda bari loo gurmanayay ma in la isku gurman baa la rabaa haddii taa la wada aanu de ma fahmin anu nabadgelyo lagu soo dabaalaa le hadalkii intaa ma dhaafinaya anu assalaamu calaykum waraxmatullaahi indheergarad oday beeleed annagoo ka kooban gobolka awdal ama degmada buurama waxaan halkan ka soo jeedinaynaa waxaa yimid waxaa jira garawaa waxa la yidhaha bana soo galay garawaagaasi muxuu yahay hantida ummadda cid baa ururisaa cidina way kantarooshaa hantidhowr baa yimid waa ka hantida ummadda ilaaliye wey ninkii ku xadgudba ee hantida ummadda iska liqliqa ka qabta weeye hantidhowr maxamuud aw cabdi malaa 20 jeer bana baadhi dowladdii hore nin aad u maamul wanaagsan baa laakiin waxaan leeyahay malaa waxba loo soo dhiibay sababtoo weli ma soo marin ma arag hantidhowr intaanu natiijo gaadhin idaacadda wax ka sii daaya halkaa maxaa ku jira dee khalkhal baa soo geliya marka kuma guulaysanaya hawshiisii dadkii bar baa ka baxsanaya waxbaa soo dhex gelaya waayahay hantidhowrkii wuxuu sameeyey dad uu xidhay dadna dibaddu wixii uu eedeeyey dee uu sii daayey badh buu sii daayey qaar baa waxaa la sheegaya xildhibaano loo diray meel laantaasi waxaan isleeyahay waa private bay ahayd waxa weeyaan xiri dhiigta private baa loogu talagalay maamulaa la yidhi nadaafadeeda caafimaadkeeda hawlaheeda laydhka wixii ka soo baxa lagu businesska la isku celiyaa la waa lagu maamulo laba inan baa joogay xildhibaano ah oo loo diray oo maayirka u diray isagaa ka mas-uuliyadda markaa maayirka ka mas-uula hadduu buwag u dhiibay hadduu iyaga u diray amarkaa iyo waraaqihii uu na waa la hayaa dee siduu ugu diray isagaa yaqaana waxa weeyaan waxa maamul baa jira labadii inan ee halkaa mid waa la xidhay midna madaxtooyadaa sii daysa baa taa lafteedu waa qalad weyn madaxtooyadu dee dadka waa wada madax cidun madaxu maaha waayahay waxaan u soo noqdo maayar waxay ku soo eedeeyeen hantidhowrka 400 milyan inuu ku maqan tahay waa sharci ninku hadduu lacag hantida qaranku leeyahay hadduu maamul xumeeyo ila xidha waa waajib wuxuu u gudbiyaa hantidhowrku sidii nidaamka ahaa maxkamaddu u gudbiyay
maxkamadda markuu gudbiyo xeer ilaalintu waxay soo siisay guddidii deegaanka xildhibaanadii bay soo siisay waxay tiri ninka xasaanada ka qaada uu eedeysan yahay hantidii ummaddu cunay marka xasaanada ka qaaday xeer ilaalintaas soo gudbisay maxkamadda gobolkaas soo gudbisay waayahay halkaa waxay haydeesay iyagu burtugalkooga inay socdeen way fadhiisteen amarkaasi xag ku ka yimid maxkamadda dee madax ka sarreeya ma jiro barasaabku dawladdu wakiil uga yahay ninkani wuu eedeysan yahay nin eedeysan ilaa wax dee marka wax lagu caddeeyo waa la soo eedeeya hantidii fartaa la saaray siday sheegayaan dee waraaqaa loo qaybiyey xildhibaanada la leeyahay intaasuu cunay xasaanada ka qaada golahoodii bay fadhiisteen way dhammaystireen okay haddana waxaa timid ninkii kursigaa iska fadhiya halkaa maxaa ku jira dee ninka la maqashiiyey intaasoo milyan buu cunay oo lacagtii hantidii ummaddu cunay la maqashiiye laga sii daayay idaacadii meel kasta loo qaybiyey haddana kursigaa ha fadhiyo aqalada albaabada lagala baxay yaa albaabkiisa lagala bixi doono dee ninbaa caynu doono soo maaha halkaa waxay istaagay cashuurtii degmada way istaagaysaa waxaan leenahay ha loo daayo xildhibaanadu fadhigoodii way fadhiisteen xasaanaday ka qaadeen sidii sharcigu ahaa baanay u dhameeyey ka noqo wax de ma dhici karto dee waabay soo eedeysay dawladda waxbuu cunay bay tiro wuu xumeeyey maamulkiibuu xumeeyey ummaddii qaranka hantidiisiibuu cunay baa lagu soo eediyey xasaanadda hadday ka qaadeen dee sidiisa loo xidho weeye haddana isagu halkii ha fadhiyo degmadii halkaasay isu taagtay waxaana dhacday dee ilaa maalmahan magaaladu way buuxdaa yacnoo talada odayaasha iyo waxaa la yidhaha caaqil xasan muuse cabbaas maanta halkan waxaa isugu kaayo keenay horta waxaanaan aragoon la yaabana marti waxaan taagana hablaha beri dumar baa habla da-yaryar laga guursaday waa la qaaday baa la yidhi hablihiin kolay dhaqanka soomaalida mid baana inateeda show gudinba waxay tidhi dumarkii kale alatayd way da-yaryaraysaa ma guurba ma gaadhina waa lahay waxay taa intayda lamaba arag tayda lama arag iyadoo dhaqankii soomaalidu ku adkaabada inahan la gudinina ceebta waxaana halkanna keenay waxaanu 20kii bilood ee u dambeeyay xukuumaddan dambe talinaysa arkaynaa waxaanaan arki jirin oo fitan abuur ah maxaa keenay waxaanu aaminsannahay dalkan Somaliland in ummaddu wax ku heshiisay bal wax kastoo tabashi ah iga maqnaato tan maantaan ka hadlo waxa dhacday inay dawladdu halkan timiday sida raggiga horreeba sheegeen hanti dhowr yimiday sharci sida ay tahay oo aaminsan in la ilaaliyo hantida dawladda waxay soo saareen ama wax ka faragin xoodana ma sax u hadlaa wixii ay soo saareen waxaan aaminsanay inuu sharci waxa ka dambaysay xeer ilaalinta waxaan aaminsanay macnaheedu inuu sharcigu ka sareeyo inuu soo gudbisay deegaanka boorame inay xadaanada ka qaadaan eedaysanaha deegaanka madaxda ku ah xeer ilaalintu waxay hoostigtaa wasaaradda arrimaha gudaha waa bilayska ka tirsan waa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan la yaabanahay marka kan dambe hadlayna wax ka socda wasaaradda arrimaha gudaha bal dawladdu hay isu noqoto midna yeeli mayno aqbalina mayno shacabkii loo sheegay 3,800,000 inay oo hordhiciyeen hantidoodii ka maqan tahay aanan laga qancinin shaqo ku soconaysa magaranada dawladdu hay isu noqoto waxaan ka hadlaynaa nabad baan doonaynaa waxaan doonaynaa inuu dalku sidiisa u shaqeeyo ummaddu awalba hantida way bixinaysay way ka qarsooneedoo ma ogey waxa la yidhi intaabaa hebel oo quri ku maqan tahay hadday sidaa maqleen xukuumaddu waxay ku qancinayso dib ha isku noqoto dadkii waxaan codsanaynaa madaxweynaha dalkan Somaliland Axmed Maxamuud Siiraayo wasiirka arrimaha gudaha degdegina arrinta u soo farageliyaan gobolka ka nabadalaan sidaa hadday ku iloobaan waxayna wax ka qaban karin baa dhici doona la noomana qabsan doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa weeye badbaada aan wadno waxa kamid ah cod baan ku nimid annagu codkaasay daga damay shacbigeeyo
annaguna waxaanu ku doornay kawsarkan dowladda hoose cod shacbi iyo ku cuqaalba gobolkaa doorta waa lagaga dambeeyaa baarlamaanka waanu dooran golaha guurtiga waanu dooran madaxweynaha waanu dooran intuba waxaan u haysanaa inay cod sharciga noogu joogaan hadday iyagu jabin bilaabaan ka kalaa jabaya ku xiga ka kalaa jabaya kursigaaga imanaysa waar haddaad wax xukumayso xukunkaa jabin anu waxaan leeyahay ninka wax xukumaya ayuu xukunka jabin hadduu jabiyo carruurtaada cayda lama baro carruurtaada adiga islaantoo islaynaya lama tuso carruurtaada lama tuso beenta waar waxaa hala ilaali mas-uuliyaddu iska fuur maaha waa ilaali waa sidaa tahay iskaro adigu oo jir anigu waxay la tahay haddaad adigu joogi weydo anigu dee adiga kuma talinayo ood adigu kursigaaga joog weydo anigu waxa weeyaan gurigaaga joog baan kugu hoos taaganahay dowladda dhista waa kugu hoos taaganahay anigana miciini noqon kugu taaganahay anigana waa ba-ayga iyo jabkayga iyo dee bulshadeedii baabaaday adigana waa burburkaaga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wada duuduuba waa markii ugu horreysay ee qaar ka mid a madax dhaqameedka gobolada awdal ka hadlaan khilaafka hadheeyay golaha deegaanka ee degmada boorama isla markaasina waxay madaxweynaha somalilan ka codsadeen inuu u soo diro wafdi si uu arrimaha murugsan ee ka taagan magaalada boorama u dhameeyo sidoo kale waxa ay xukuumadda uga digeen in ammaanku laga yaabo in ammaanku faraha ka baxo haddii ay xukuumaddu indhaha ka laabato qadar maxamed xasan laba qaydle awdal press magaalada boorama.